كل ودريمي كرتا جيركا oo maaragtay go'ay anaga waan qorto kullu nafsi daaqatul mood horta qof kasta waa dhimanaysa laba habeen ay ku jirto iyada oo meed ah hooyiga ay ka deganeed Muqdisho oo ay kula nooleed saygeeda oo muddo 15 cisho wax ka yar isqabay gabadha walaashay waaye madiina taajir la yiraahdaa anigana xasan taajir la yiraahdaa waa daadiigu aniga madiina taajir Allah u naxariistee inta aysan dhiman ka hor waxa ay timid guriga hooyadeed oo wax yar isku jira guriga lagu qabay gabadha habeenkii jimcaha ay xaafadda imaaday hooyo soo booqatay maqribkii iyadoo casho soo raadsatay muufo soo doonatay kadib muufadii way qaadatay maqribkii intii isaga dukatay xaafaddeeda isaga laabatay wax dhiba ama wax ay sheeganaysay aan ognahay ay noo sheegteen hooyaraatay ma aysan jirin habeenkaas oo ay ku beegneed habeen jimco soo galaysa taariikhduna ahayd 13 bishan ayuu dilay ninkii ay dunida ka jecleed kor ayuu qolka uga xiray wuuna iska tagay habeenkaas ilaa iyo maalintii jimcaha oo dhan iyada oo mid ah ay dhex jiftay gurigeeda shalay 12 saac bar mar ay maqribkii ku dhowdahay ayaa gabar reerkooda ah ayaa noo timid xaafadda hooyo imaaday iyadoo baadi goobayso gabadhaas madiina ma idin imaaday xaafadda ma joogtaa gurigii wiilka uu ka maqan yahay iyadoo dhayso kadib waa loo sheegay inaysan gabadhi joogin oo xalay guriga ugu dambeysay markii la sii wareystay waxaa la ogaaday inay gabadhii macnaha anaga xaggeena is soo jirin wayna naga tagtay markaas oo gabar walaashii ayaa joogtay raaxo taajir la yiraahdo iyo hooyaa joogeen kadib way iska baxeen aniga i soo wacday markii gabadhii walaashay ahayd si ay ila soo xiriirto xaaladda ila socodsiido xaaladda markii ila socodsiiday waxaa dhacday gabadhii idin timaaday maxaa u dhihi weydeen gabadhii guriga hala jabiyo maadaama wiilka uu maqan yahay ayaga maqnaasho ay ku og yihiin gabadhii maxaad u dhihi weydeen guriga hala jabiyo si loo ogaado gabadhii inay guriga ku jirto iyo inay ka maqan tahay haddii ay guriga ka maqan tahay wiilkana uu maqan yahay waa baab gooni ah oo laba isla maqan oo meel isla jiro kulley inay yihiin ama laba isla maqan inay yihiin ay ahaan leed laakiin haddii wiilkii iska baxay uu maqan yahay oo ayaga reerkooda dhahay wiilku uu maqan yahay gabadha idinka xaggeena may soo jirtaa raadinayaan gabadheena anaga ma haysanay gabadhii guriga ha laga baadigoobo isla markii gabadhii wacday waxay tiri guriga hala jabiyo waxay dhahday guriga ilaalinayo haddii la jabiyo way ugu soo celisay gabadhii saasay leedahay waxaan dhahay marka sugaan dhahay anaa wacay cabdiraxmaan wiil walaalkay aniga la dhashay oo gabadhaas da'da ka sii weyn ah ayaan wacay xaafaddana uu ka dhawaayay oo daris ay ahaayeenba isagaan wacay waxaan dhahay ka waran xaaladda waan maqlo yiri arrintaas gurigaan tegey haddana waan ka laabtay uu dhahay guriga waan kasoo tegey okay haddii aad kasoo tagto waxaan guriga dib ugu laabo waxaana samaysaa guriga inaad maaragtay reerkaas idinka oo isla jirtaan inaad guriga jabisaan gurigii sidii ay reerka isku arkeen gurigaa la jabiyey alcumuum gurigii markii la jabiyey albaabkii markuu ka galay qofka ugu horreeya asagoo ahaa albaab ka galo wuxuu arkay walaashiis oo markaasoo meed ah oo wejigeedii iyada dhanba dhiig uu bedelay marka qaabkii wax ugu yaalaan ma uusan fahmin laakiin wuxuu sheegay in madaxa uu wax ka gaareen uu ii sheegay dhiiggii macnaha ku yiilay aaweed gabadha dhaawac badanaa ku yiilay dhaawacyo yaryara horta ku yiilay qaababkan oo gacanta oo kale meelahan oo kale midiya ugu tiilay dhinacan dhan ilaa iyo intaan midiyo uu ku mudmuday iyo waxa uu saan ugu sarsaray dhegtoo kale iyo muxuu ahay midiyo wax ku geliyey intuu canka meelahan oo kale wuxuu midiyo ka geliyey laakiin waxa ugu daran waxay ahayd waa markii uu mididii uu ku gooracay muxuu ahaa 3 bishan ayaa la isku guuriyay iyada oo reerkeeda u keentay ninka dilay una sheegtay in ay doonayso in loo guuriyo sidaas ayaana loogu ogolaaday guurka 12 maalmood ay kaliya eeba wadan walaayeen habeenka 12aadna waa habeenka jimcaha oo meeday ahaydba oo asiga dilay ayaga is doortay oo gabadha iyada noo soo sheegtay oo noo soo bandhigtay in ninkaas ay heshiiyeen reerkan uu soo dirayso alcumuum gabadha reerka qofka ay keensato waa la soo dhaweynayaa waa soo dhaweynay way noo imaadeen isaga iyo laba nin oo adeeryaashiisa noo imaadeen inta qolkan ayuu ahaa qolkii aan maaragtay
isku soo baranay markaas imaatankii koowaad kulankii koowaadba. 3 caruur ah ayay hore nin kale ugu dhashay, 2 gabdhood iyo wiil ayayna kala yihiin. hadda labadan ayaa la nooleed, gabadha kalena waxa ay la nooshahay aabaheed. caruura u joogtay 3 caruura u joogto alxamdulilah. marka asagana hadda waa intaan kuu sheega waayaba 3 bishii ayuu 11 habeen kaliya bay isla noolaayeen. xasan taajir oo ah marxuumadda walaalkeed waxa uu inoo sheegay in ninkii dila Maryan la qabtay, haddana ay baaristiisu gacanta ku hayso waaxda dambi baarista ee CID-da. sida ay ugu suura gashay qabashadiisa ayuu inala wadaagay. jirkiisu oo dhiig yahay oo maaragtay bac wato, dokumentiyo wato, lacag 1 milyan ah bac ugu jirto, furo wato, dhar dhiigana uu maaragtay dharkiisa uu dhiig yahay. 11 saac oo subaxnimo in laga qabtay muxuu ahaay madaxtooyada agteeda. qolada madaxtooyada ay qabteen weydiiyeen oo u sheegay in macnaha uu xaaskiisa uu soo dilay. kadib waxay ku wareejiyeen qoladan la yiraahdo muxuu ahaa saldhigga oo Xamarweyne. saldhigga Xamarweyne ayaa sidii kiisku kula wareegay. qolkan ayuu ahaa qolka ay gabadhu waxyeelada ka soo gaartay markii uu dhibka gaarayay. sida ay hadda tahay waa ay ka duwaneed xaaladda markii meedka la arkay. waxa inoogu waramayaa jawiga sidii uu ahaa markaas goobjoogahan. horta xaaladda meesha aan kala kulmay iyo hadda jawiga guriga ka muuqda difference aad u weyn u dhaxeeya, iyadoo xaaladdu meesha ka jirtay xaalad aad u liidata. gabar oo maalintii la dhiibayana aniga aan ogaa, haddana markii aan meesha u imidna iyadoo meed aan u imid oo aan la arki karin, la fiirin karin xaaladeedana. kolley qofkii maaragtaa imaan leh inuu iska sabra maahane wuxuu sheegay uusan garanayn meesha aan kula kulmay. waxay u taalay kolley qof dumar bay ahayd, horta madaxeeda u qawnaa, mididan waxay ku tiilay dhuunta waa ka jarneed, canka meelahan waa ka jarneed, gacanta meelaha waxbaa ugu yeelay, garbaha midi baa ku tiilay, cajarada iyo midi baa ku tiilay, dirac baa ugu jiray oo maaragtaa oo aan jeclahay inuu ahaa nuuciisa nuucay dumarku dhahaan qaxwada. marka si oosaanay u jiifta marka kolley joodarin waxay ka jiiftay dhanka soko, oo haddii joodarin lagu fadhiisto lagu talagal lagu fadhiisan lahaa, joodarin dhulka buu yeelay. joodarin waxaa geesaha ka saarnaa 2 barkin, dhiigan wuxuu ku yeelay shumacana qaybo fafanina ku yeelo aan aad u sii badnayn, laakiin dhiigga inta badan joodarin waa ku dul saarnaa asigoo maaragtaa ah sidii ii sheeg baar la jarjaray oo kale. dhiigga markuu dhacaanku ka dhamaado wuu isku imaanayaa. maxamed cabduqaadir jirow, mustaqbal media, muqdisho.